Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed. Kusoo dhowow channelkayga Maxamada. Muuqaalkan u qaado inuu yahay podcast. Podcastigan waxaa kaga hadlayaa dhibaatada internetka uu leeyahay, khaasatan uu u leeyahay ilmaha yaryar iyo teenagerada, dadka oo tobaniyada markaas soo kacay da'da yar. Sidaa ognahay, xilligan la joogo isdhexgalka bulshada aad ay u batay. Helidda internetkana way sii fududaanaysaa. Helidda aaladda smartphone-ka ama mobilka laga galo internetyada aad ay u sii fududaanayaan, raqiis ayna sii noqonayaan oo qof walba markaas uu heli karo. Taas waxay sababaysaa markii ilmihii yaraa inay heli karaan da'yar, inay ku heli karaan aalad smartphone ah, internetkaasna ay geli karaan. Waxayna u sii furaysaa waddo oo ah inay ku sii xirmaan dad badan oo adduunka jooga. Ee markaas haddii ay noqoto aragtiyooyin ay ka qaadanayaan, haddii ay noqoto inay la sheekaystaan oo ay dhex galaan ummado ka duwan. Laga yaabaa gabadhaada ama wiilkaaga kuu jooga xamar ama kuu joogta Jigjiga, Hargeysa, Jabuuti iyo Gaarisa inay la socdaan ummado kala jooga Maraykan, Ingiriiska, Norway, meelahan China, inay la socdaan oo la haystaan oo markaas ay ka akhrisanayaan aragtiyooyin ama ay la xiriirayaan. Inta badan ma xuma, laakiin haddana meelaha waxyaabaha ay saameynta ku yeelan karo waxaa ka mid ah in saameyn ku yeelato aragtida adduunka ay ka haystaan iyo diintooda. Anugaaga inuu wax ka baranayo ummad aadan adiga wax ka dhageysan lahayn, inuu wax kasii baranayo oo markaas ay ku sababayso. Waagii hore waxay ahayd dadka Yurub iyo America joogo dhaqan celina loo celinayo la dhihi jiray. Hadda qof walba mobilka uu jeebka ku wataa, adduunkii waa isku wada mid u noqonaya. Haddii markii ilmahaaga aadan la socodin, waxay barayaan si u fikirayaan, waxay ka qabanayaan internetka markay galaan, social mediahooda maxay soo geliyaan. Haddii aadan la soconin, waxay noqonaysaa marka albaab oo waxaad u furtay ay hawadaas ay ku gali karaan. Marka dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan oo la arkay waxaa ka mid ah in lagu sameeyo ilmaha cyberbullying waxay dhahaan, in internetka lagu dhibo. Qof ay ka baranayaan, gabadha say u badan tahay gabdhaha arrintan qabsato, qof ay ka baranayaan internetka qofkii ay ka barteen, nin ka weyn ama wiil la facay ka baranaysaa. Markaasaa la leeyahay sawir ii soo dir adoo qaaban ama adigoo sidaan ah, ama video call, si marar badan ay dhacdo waxyaabo aanan munaasib ahayn ku sameynayaan. Markaasaa midba midka kala duubaya. Marka hadhow waxay noqonaysaa in qofkii lagu cadaadiyo, lagu dhibo, la soo geliyo internetka, ama loo diro asxaab iyo dadka loo diro. Sheeko waxaa jirto gabar Canadian ay ku dhacday oo YouTube-kay ku jirtaa, waxaa la yiraahdaa Amanda Todd in la yiraahdo maleyna. Gabadhaas waxaa ku dhacday, waxay internetka kala sheekaysan jirtay asxaab ay dadkaas ka baran jirtay. Maalin ka mid ah nina u soo galay, markaas uu bartay, wuu amaanay. Marka gabadha xoogaa yar waxay dhahaan speech impairment ama waxay qabtay carab gajiyo, saas ama ay ahayd. Asxaab ma yeelin karin, dadka way dhibi jireen, way caan jireen. Marka dadka internetka oo amaanayo u heesi jirtay, markaasaa ninkaana wuxuu u amaanay, way isbarteen. Marka inuu rabo u sheegay, gabadh ka yar ahayd. Marka gabadhii wuxuu ka dhaadhiciyey inay xabadkeeda tusto, ay muuqaali sawiraan ay u dirto aan habbooneyn. Markaas wuxuu sameeyey sawiraantii, wuxuu ka qaaday, wuxuu dhahay muuqaal sidaan ii duub, haddaanan ahayn sawiraantii wixii aan ka hayay internetkan soo gelinaya, dad badan oo diraya. Gabadhii
way ka diiday. Markaas wuxuu sameeyey sawiraanteedii ayuu u diray Facebook kusoo darsaday. Facebook wuxuu ka helay marka familkeeda, asxaabteeda, dadkii iskuulka la dhiganayay sawiraantii meeshuu ku faafiyey. bas gabadhii way la rafaaday. xataa mar dambe waxay baratay daroogo inay isticmaasho. walwal iyo wuxuu ka abuuray u dulqaada weysay. maray isku dayda xataa inay isdisho. marba iskuula la geynaa uu kaga daba tagaya. qofkaa qof la ogyahay maaha. kaga daba tagaya Facebookeedu waa haystaa. markaa asxaabtii uu kusii darsanaya. qof internet wax ka yaqaanan uu ahaa. sawiraantii uu sii faafinaya mar walba. ugu dambeyn gabadhii waxay noqotay inay muuqaal iska soo duubto YouTube-kii laaduu ku jiraa. ay waraaqa kusoo qorqortay arrinta ku dhacday kaga hadlayso. kadibna nafteeda ay saas isku dhaafisay. waxyaabahaas ayay kala kulmi karaan ilmaha yar. go'aamada ay qaadanayaan mid laga fiirsanayo maaha. hadhowna nafta ayay isdhaafin karaan. hadda bulshadeena aad ay ugu soo badatay waa arki kartaa. Telegramka qof lagu soo qarxiyey linkii ayaan kuu soo diraya. inta badan waa maqashay inay ku dhacdo. laga yaabaa dadka waaweyn inay xoogaa u dulqaataan, laakiin ilmo yar haddii sidaas lagu sameeyo ay aad u dhibi karto oo ay naftii isdhaafin karaan. waxyaabaha dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan internetka waxaa kaloo ka mid ah in aragtida naftooda ka haystaan inay hoos u dhacdo. ay inta badan ay isbarbar dhigaan dadkii kale oo maaragtay body image ama jirkooda inay u barbar dhigaan dadka jirkooda ama dadka kale noloshooda inay u barbar tooda ay nacaan. marka ay aragtida naftooda ka haystaan ay hoos ay aado ay kala kulmi karaan. waxaa kaloo kala kulmi karaan oo ugu xun inay bartaan caadooyin xunxun. sida hadda maanta jirta internetka waxaa caadka gebi ahaanba laga qaaday muuqaalada anshaxa xun. haday noqoto dad qaaqaawan ama dad waxyaaba aan munaasib ahayn oo xunxun ku sameynaya muuqaalada galmada oo kale inay jiraan website caadka laga qaaday oo qof walba si direct u gali karo u daawan karo. marka ilmaha yar haddii aadan waxyaabahaas aanan kala hadlin ama aanan ka xirin website-yada noocaas ah waxay ku noqonaysaa inay dabinkaas ku dhacaan. ay dhibaato weyn ay u geysato adduunkooda iyo aakhiiradoodana ay sidaas ay ku gabaan. waxaa waaye marka dhibaatooyinkaas ayay kala kulmi karaan. dhibaatada kale aan isdhihi karo way kala kulmayaan in focuskooda uu lumo. inay wax diiradda saaraan in muddo ah. maadaama hadda ay yar yihiin wax ay baranayaan waa u muhiim inay diiradda wax saari karaan oo si fiican wax u dhegeysan karaan ama in muddo ah hal howl keliya ay diiraddooda ay saari karaan. laakiin internetka markaad soo geshid oo aada muuqaalo daawanaysid oo muuqaaladan gaagaaban hadda shortiska ay dhahaan midba midka ka dambeeya haddana wax ka duwan kii hore waaye. marka qofkii markii xamaasadaas ay galayso wuu ku caajisaya. marka howl yar haddii hoogaha uu ku daaho mid kaluu rabaa inuu sii galo oo isla markii u boodaya. taasna waxay ku abuureysaa dhow inay ku adkaato inuu diiradda saaro wax dheer, inuu cashar dheer akhristo, inuu macallin dhegeysto in muddo ah aad ay ugu adkaanaysaa. marka xagga diinta iyo xagga maadiga ayay kala kulmi karaan. marka waxaad siinaysaa marka mobile aan kuu soo iibiyey markaad leedahay wiilka 10 jirka gabadha 9 jirto ama meelahaas jira. hadda waaba kasii hooseysa oo generation waxaa jiro alpha generation 2010 wixii ka dambeeyay ilmihii dhashay waxay dhahaan alpha generation, iPad generation. waxay wataan wixii alaabihii lagu ciyaari lahaa bedelkooda
waxay wataan moogtahay iPad ay wataan oo markaas muuqaalo kala daawana haddii laga qaado buu oynayaa maanta oo dhan baa halkaas shaashad haddaa u fiirsatin ookiyaalayaasha ay wataan ilmaha reer galbeedka u badan waxay ka imaaday marka shaashadaasay mar walba saas u fiirinayaan. Marka waagii hore aaladan smartphone-ka iyo internetka wuxuu ku badnaa waqti intuu kusoo hormaray wadamada reer galbeedka kusoo hormaray kadib hadda wuxuu aad ugu sii fiday marka adduunka oo dhan hadda meel walba tigtid internet wuu iska yaalaa. hadda ereyga ah internet hebel internetka ma fadhiya waxay ahayd ma ogtahay internetka xarun bis internet provider ama qof oo meel internet u furan aad tagaysaa meesha fadhiisanaysa computer iyo laga isticmaalayo saasay ahayd. laakiin hadda qof walba gurigiisa ugu jiraa qof walba dad yar maahan dad badan way haystaan daatada jirto oo la sii raqiisiyey waxaa jiro maaragtay wifi oo caadi loo soo gashto oo lasoo xiriirsado marka qof walba isku jaanis waaye isku si ayuu u helayaa. marka inaad tiraadid adigii adoonan ogeyn dhibaatooyinka uu kala kulmi karo iyo waxyaabaha ay ku sababi karto inaad tiraadid mobilka dhab oo iska qaado haddaad tiraadid waa dhibaatadeeday leedahay. marka adiga ku dhacda inaa maaragtay dhib adiga buu ku geysan karaa ilmahaagana dhibaato taas ka weyn ayuu u geysan karaa. adiga markii inaad tiraadid anigana waa isticmaalaya sariirta markaan jiifo mobilkaas kor usii wadaa iska haysanaya adigana mobil laguma ogola haddaad tiraadid wax faa'iido weyn oo saameyn inay ku yeelanayso ma maleynayo. inaad tiraadid sigaarkaana waa cabaya adigana ma cabaysid ma soconayso. kow inaad adiga isbedeshid maxay imaam shaafici wuxuu dhahaa laysa alfaqiihu faqiihu biaqwaalihi maad adiga qofka faqiga ah oo sheekha ah maahan kan afkiisa iyo hadalkiisa bas uu ku noqday waa midka ku noqdo biafcaalihi ficiladiisa qofkan dhaqankiisay bedeshay markaas ayaa maaragtay uu ku hogaamin karaa uu saas uu qofkii dhinac fiican u hagi karaa. marka maskaxiyan jismiyan diiniyan dhexgalka bulshada waxyaabo badan ayuu ku saameyn karaa ilmaha yar haddii waa inaad kala hadli kartaa aad u sheegi kartaa qof walba sawiradaada ha u dirin qofna ha u dirin sawiraad qaawan tahay ama si wax kale ah aanan munaasib ahayn ha sameynin howlaha sidaan ah website-yada noocan ha gelin ama inaad ka xirtid baad aad u yaryahay ilmaha website-yadaas inaad ka bilowdid xilliga screen time-ka ama maalintii intuu ku bixiyo shaashadaas daawashadeeda inaad soo yareysid oo maaragtay maalintii waxay dhahaan ilmaha hadday yaryihiin saacadii 2 inay ka badnaato maahan in shaashadaas ay fiirinayaan. waxaa jirto 2 shay ayaan ku darayaa kadib waa soo gebagabeyn doonaa waxaan ugu magacdaray podcastigan. kow in ay ka heli karaan loneliness wax loo yaqaano ama cidlo inay cidloodaan social media dad badan oo dad ku xiraya internetka dad badan lagu xirmaa haddana waxay u muuqataa in cidlada la dareemayo qofkii inuu cidlooda ay aad u sii badanayso. ilmahan marka aad ayuu cidloonaya mararka qaar like hadduu heli waayo way dhibaysaa gudihiisa maaragtay marka aad u cidloonaa guriga laisla joogaa ujeedaa boqolkiisu ku jiraa oo maalintii dhan isma arkaayo qofkiinu banaanka aado soo socdo isla hadlo familka ay sheekaystaan ayaa ka hor istaagaya internetkaas isticmaalkiisa 9 lagu jiro. midda kale waxaa jirto TikTok oo kale iyo meelahaas in ay jirto trend wax la yiraahdo waxyaabo markaas
caan ah oo la sameynayo qofu markaas uu sameynayo la xiiseynayo tusaalahaan ayaa jirto oo mararka qaar halis gelin karta naftiisa. Waxaa jirtay waxyaabo badan oo ay sameyn jireen ilmaha reer galbeedka oo markaas guryo ay ku gubanayaan bas internetka laga sameynayo. waxaa jirtay shilin in lagu tuuro jaajaraha inta afka saas loo geliyo socketka ayaa meeshii banaanada shilin lagu ridayo oo kale in maasadaas yar ay ka kacayso ay rabaan markaasuu guriga dhan gubanaya. waxyaabo badan oo saas halis u ah nafsadooda halis gelin kara ayayna sameyn karaan. marka ilmaha la sheekayso fiiri mobilkooda ka xir website-yada aan munaasabka ahayn. mobile inay u diyaar yihiin ka fiiri marka hore si aanan oga mashquulinin inay mustaqbal fiican samaystaan ay wax bartaan diini iyo maadiba. kalsoonidooda naftoodana aynan hoos aadin iyo koritaanka maskaxdooda weli hadday sii koraysaa oo qaybta hore xataa waxay dhahaan ilaa 25 laga gaarayo frontal lobe-ka ma dhamaystirmayso xataa. haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkan like saar channelka Muhammadana kusoo biir. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay daawashadaada.